Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka telefishinka SBC oo si toos ah idinka imaanaya stuudiyaha magaalada Garowe. Waxaa idinla socodsiin doona anigoo Maxamuud Cabdinaasir ah. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo si rasmi ah u furay shirka amniga qaranka kaasoo ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada iyo xubno ka tirsan beesha caalamka. Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya wadanka Yemen oo sheegaya in madaxweynihii hore ee wadankaasi Cali Cabdalla Saalax ay dileen kooxda Xuutiyiinta xilli uu ku sugnaa magaalada Sanca. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo loo qaybiyay xiroosaadka iyadoona xubno cusub lagu daray guddiga dastuurka ee baarlamaanka. madaxweynaha maamulka Galmudug ee Soomaaliyeed oo ka warbixiyay heshiis hordhac oo u dhaxeeyay Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe. waxgarad ka hadlay muranka u dhaxeeya dawladda iyo ganacsatada ee ku aadan dekedda magaalada Boosaaso. ciyaartooyda xulka Puntland oo u ambabaxay magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan koobka loo qabanayo ciyaartooyda maamul goboleedyada Soomaaliyeed. golaha wakiilada Somaliland oo ansixiyay xisaab xirkii dawladda ee sanadaha 2014-2015. intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararkayaga aad ku daawan doontaan, balse marka hore isku soo noqod wanaagsan mar kale daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu ka furay shirka amniga qaranka Soomaaliyeed, waxaana shirkaasi ka qayb galaya madaxda dawlad goboleedyada iyo xubno ka tirsan beesha caalamka. wariyaheena Cabdirasaaq Cabdulqaadir ayaa warbixintaasi Muqdisho ka soo diray. shirkan oo looga arrinsanayay ammaanka dalka ayaa waxaa si rasmi ah u daafuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo, waxaana ka soo qayb galay madaxda maamul goboleedyada dalka, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, hoggaanka midowga Afrika ee AMISOM, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaano madaxda beesha caalamka iyo safiiro ka socday wadamada taageera dawladda Soomaaliya. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo khudbad ka jeediyay furitaanka shirka ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha ciidan tayo leh kaasoo hanta ammaanka dalka oo kala wareegi kara ciidamada AMISOM. that will provide a safe environment for our citizens. madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa iyaguna si isku mid ah uga hadlay muhiimadda uu leeyahay ammaanku iyo sida ay uga go'an tahay wax ka qabashadeeda. waxay si gaar ah u dul istaageen in la hirgeliyo qodobada ka soo baxa shirkan iyo weliba shirarkii hore. wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow ayaa markii uu soo dhamaaday shirku faahfaahin dheeraad ka bixiyay qodobada shirka ka soo baxay iyo sidoo kale waxyaabaha looga hadlayay. shirkan wuxuu daba socdaa shirkii London 11 May 2017 oo Soomaaliya iyo caalamku heshiiyeen wax loo yaqaan Security Pact kaas oo sheegay in labada dhinacba laga rabay in la dhaqan geliyo security architecture wax loo yaqaano ama naqshada muxuu ahaa amniga Soomaaliya oo runtii loo marayo si ka duwan siyaabihii hore oo si dhammaystiran oo comprehensive approach wax loo yaqaano. madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyay oo ka warbixiyay xaaladda dalku marayo, horumarka la soo sameeyay iyo meesha maanta dalku marayo. sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo
wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha dhammaantood iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkaba waxay ka hadleen horumarka la gaaray ilaa iyo hadda shirkan wuxuu ahaa shir lagu qiimeynayo horumarkii la gaaray May ilaa hadda caqabadaha looga hadlayo isla markaana la isku raacay sidii hore loogu wada socon lahaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee ka soo baxday waa 3 arrin kow in la dhaqan geliyo naqshadda amniga oo heerka qaran ah national security architecture-ka labo waxaa ka soo baxday in ciidamada Soomaaliya loo diyaariyo inay kala wareegaan amniga kuwa AMISOM taasoo lagu xiray hadba sida ay macquulka u tahay caalamkana laga codsaday inay taageeraan sidii Soomaaliya ugu diyaar garoobi lahayd inay la wareegto amnigeed iyo ugu dambeyntii in beesha caalamku ay ballan qaadeen in Soomaaliya oo isdiyaarisay qorshaheedii la timid inay ayagana dhaqan gelin doonaan intaas ka sokow waxaa meesha laga sheegay in madaxweynuhu uu shir gudoomiyey 4 golaha amniga qaranka oo ay ku jiraan madaxweynaha dowlad goboleedka tan iyo intii Febraayo oo madaxweynuhu la doortay taasoo runtii caalamku ay aad ugu riyaaqeen sida madaxweynuhu ugu horseedayo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay ka wada shaqeeyaan amniga bacdama muhiim ah waxa kale oo la sheegay ciidamada la isku dhafayay inay meel fiican marayso tii u dambeysay 2400 oo ciidamadii Puntland joogay lagu soo daray ciidamada dowladda oo ayagana ay tahay in ciidamada oo dhan ay noqdaan ciidamo qaran oo Soomaaliya oo dhan ka tarjumaya shirkan looga hadlayo arrimaha amniga dalka ayaa wuxuu socon doonaa muddo 2 maalmood ah waxaana marka la soo gabagabeeyo looga soo saari doonaa qodobo wax ku ool ah oo dhanka amniga quseeya Cabdirasaaq Cabdulqaadir SBC Muqdisho tababar ku saabsanaa maamul wanaagga oo loo qabtay gudoomiyaasha gobolka Bakool ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo wariyaheena Maxamed Cabdicasiis Salaad ayaa warkaasi noo soo diray tababarkan oo muddo 5 maalmood ka socday xarunta gobolka Bakool ee Xudur ee loo qabtay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Bakool waxaa inta badan diiradda lagu saarayay maamulka iyo maareynta maaliyadda iyo dib u heshiisiinta waxaa ka qayb galay inta uu socday tababarkan mas'uuliyiin ka socotay maamulka degmada Xudur qaybaha kala duwan bulshada degmadaasi ay ka kooban tahay iyo mas'uuliyiin ka socday degmooyinka gobolka Bakool tababarkan ayaa intii uu socday mas'uuliyiintii ka qayb gashay waxay kaga faa'iideysteen hawnaanka horumarinta maamul wanaagga degmooyinka sidoo kalena waxay uga mahadceliyeen wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka Bakool oo soo agaasimay tababarkan iyo sida waqti ay ugu bixiyeen sidii tayada aqooneed iyo khibradda ay u leeyihiin maamulka loogu kordhiyay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Bakool Maxamed Cabdulla Xasan gudoomiyaha degmada Tiyoglow iyo Maxamed Macalin Axmed gudoomiyaha martigelinayay tababarkan oo ah gudoomiyaha degmada Xudur ayaa ugu horeyntii ka hadlay halkaasi maamulka daahfuran ee hashan lahayna ummadda ansaman meel kasto shacabshigu ku horkooy la talada koro su'aalo asluub aan ku jawaabaw la xisaabtama karo oo marna madaga anteegan kaasu yaa waylahay maamulka wanaagsan ankasto seminaarka shaqmaal moodahay way bocsadane anisin seminaar badan dibaan kanaga tan deegaankan sida la codsaday ururada bulshada dhamaantiyo malaaqinta culmaadiinka dhamaantiyo ni macnaha seminaarada ligeysi codsadaan iyada dhamaantiyo ku codsadaan maadaama wasiirni ilrooga dawladda koonfur galbeed nooy ba ku codsadaan wasiir ani barnaamijyadaas insha Allah noo saacid heedo markaas way baamaraan dawladda koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool ahna kusimaha gudoomiyaha Cabdullaahi Nuur Isneeg ayaa dhankiisa goobta ka hadlay maamuladii ku qayb galay seminaarka ma sheegan ma faraane in walayo ka baradeen ummaddu ku faa'iideen okay markii nabadgelyo ku sheekayay run ahaantii may la ogaaday in nabad mar ballanku ku maaran bulshada wasiir dowlaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dawladda koonfur galbeed Aabaawo Xaaji Suufi Cafaan ayaa gabagabadii tababarkan ka hadlay maamulo sameynta reer Bakool way siin tijaabi sababtoo ah sideed gobol way bal aray ma gobolku gees bajira oo Bakool boo meelan tijaabi ma shabeelaha hoos ba dhow meelan tijaabi waay birdaal geerad iyo singa damboyti way bal reer Bakool kisoo adageenaha bal ay fiiro laakiin aad kaan shamaysan ka aragne maamulka sidii sabartan geega madaxweynaha markuu wada fadhiyaan runta markaan siin sheegay wallahi meel kaliya aan ka fikiray wal ma kooyo aan lahay Bakool hayti laakiin sida lanka guuleysay eed macnaha siin ka mahadnaqay
maxamed cabdicasiis salaad TV-ga iyo raadiyo SBC Baydhabo. gudoomiyaha degmada Garowe iyo xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka oo dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah kadib safar ay ku tageen magaalada Kigali ee xarunta wadanka Rwanda ayaa gudoomiyaha waxa uu ka warbixiyay safarkiisa kadib markii uu soo gaaray magaalada arrimihii halkaasi uga soo qabsoomay. gudoomiyaha degmada Garowe mudane Xasan Maxamed Ciise oo muddooyinkii ugu dambeeyay howlo shaqo ugu maqnaa magaalada Kigali ee xarunta wadanka Rwanda ayaa shir jiraa'id oo uu maanta ku qabtay gurigiisa. gudoomiyaha oo magaalada dib ugu soo laabtay waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii uu wadankaasi kula soo kulmay. gudoomiyaha oo safarka uu Rwanda ku joogay ay ku helinayeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa uu sheegay ujeedada ugu muhiimsan ee safarkooda inay ahayd aqoon kororsi magaalooyinka wadankaasi maadaama wadanka Rwanda uu yahay wadan galay dagaal sokeeye haddana si dhaqso ah uga soo kabsaday. inaan wax ka soo baranno horumarka ay gaareen qayb bay ka ahayd safarkayaga qaybna waxay ahayd mashruuca World Bank oo rajada laga qabo in Garowe maaragtay laga fuliyo mashruuc la nooc ah ayaa ka socda wadanka Rwanda isagana waxa weeye inaan soo baranno labadiina shaqo fiican baan maaragtay ka soo qabanay hadde waan ku soo dhaweeyay wadankaasi weyn baan lagu soo dhaweeyay waxaan lagu soo dhaweeyay dawladda guud ahaan waan la soo dhaweeyay laakiin si gaar ah waxaan noo soo dhaweeyay maayarka caasimadda Kigali waxa maaragtay mashruuca World Bank degmooyinka uu ka socdo ayaa nala geeyay oo ay ka mid yihiin degmada Musensa iyo degmada Rubafu. duqa caasimadda Xasan Maxamed Ciise Goodir oo aan weydiiyay su'aal ahayd dad badan oo dhaliila shaqadiisa in ay ku eedeeyaan inuusan fulin ballanqaadyo uu sameeyay waagii uu ololaha duqa caasimadda ku jiray kuwaas oo ahaa inuu dhisi doono wadada isbitaalka aada oo u baahan in buundo la saaro iyo inuu dhameystiri doono wadada jidka Sodonka oo wali qabyo ah ayaa waxa uu ku jawaabay anigu ma qabo sida wariye adigu aad tiri in maartay arintu tahay waxyaalaha aan ballan qaaday intooda badan way fuleen buundadan in maartay la dhiso way ku jidhay ballan qaadkaygii mashruuca World Bank qaybta ugu horeysay hadda ku jidhaa ma qasaad uga warhaysid wadada Sodonkuna way ku jidhaa qaybta ugu horeysay labadaas way ku jiraan hadde wadooyinkii kale oo aan maartay ballan qaaday iyo mashaariicdii aan ballan qaadayna intooda badnid way fuleen kuwaasna waxa weeye waxaan hadda safarka aan uga nimi waa iyaga weeye. maxamuud cabdinaasir soofeysane SBC Garowe. xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland ayaa waxa ay ka qayb galeen daahfurka madal loogu magac daray Kaafiya oo ay ku midaysan yihiin aqoonyahanada gobolka Karkaar. wariyaheena Daawud Maxamed Xasan ayaa warkaasi xarunta gobolka Karkaar ee Qardho ka soo diray. madal aqooneedkan lagu magac daray Kaafiya oo ay ku midoobeen dhalinyarada da'yarta waxbaratay ayaa lagu magac daray Kaafiya waxaana xafladda lagu daafuray ka qayb galay aqoonyahan wasiiro cuqaal iyo madax kale waxaana madasha ugu horeyn daafuray Maxamuud Ifridey oo kamid ah dhalinta ku bohday madashani. Kaafiya waa ina kafaysay waana ina kafayn doontaa insha Allah bismillaahil kariim. magaca Kaafiya waa xarfo ka yimid luqadda Englishka ama Latinka. Kaafiya waxay u taagan tahay Karkaar Forum for Intellectual and Academics. haddaan dhinaca Soomaaliga u dhignana waxa weeye madasha indheergaradka iyo aqoonyahanka. madashan waxa isu taagay oo isu xilqaamay niman dhalinyaro ah oo dhammaantood jaamiciyiin ah. waxaan u malaynayaa dhinaca albaabka laga soo galo dhalinyarada ku safan oo ugu horeeyo Maxamuud Ciise Yuusuf, Caamir, Maxamed Saalax, Cabdullaahi Xasan Dheere, Dhoolawa iyo Maxamuud Cismaan Qari iyo rag kale oo badan oo caawa halkan ku wada xusi karin dhammaantood waxay isu taageen inay magacan soo saaraan bulshadana wax uga bedelaan. insha Allah bismillaahil kariim. dabcan in wax gacanta laga qabto way sahlan tahay laakiin dalkeena waad ogtihiin burburku wuxuu ahaa 27 sano ama 30 sano in ku dhowba 30 sano oo lagu jiray xaaladda burburka wax badan baynu dhaxalay oo dhibaatooyin ah. qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadani ayaa iyana dhalinta ku bogaadiyay hal abuurka ay la yimaadeen iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin dhalinyaradani ku bohday Kaafiya. aqoontu waxa la yiraahdaa waa awood laakiin aqoonta awoodda ay waa aqoonta adiga wax ku tarta sida tan maanta oo kale
aqoon-yahankan ama dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee wixii ay barteen aan hay-ad shaqo kaga doonan ama meel kale la aadin ee ku soo celiyey deegaankoodii inay uga faa'iideeyaan taas iyo aad baan mar kale ugu mahadnaqayaa dhallinyarada siirarka ah ee aqoontii ay barteen aan jeebka gashan ama aan guri la fadhiisan ee gartay inay bulshadooda uga faa'iideeyaan runtii waxaan aragnay intii dhawaanahan ahayd ururo badan oo ka shaqaynaya oo dhallinyarada ah ama tacliinta sidan oo kale iyo cilmi baarista ama deegaanka ama horumarka kaabayaasha dhaqaalaha ama nadaafadda magaalada aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa shaqada wanaagsan oo dhallinyaradu ay ka shaqaynayeen sida u soo jeensadeen waddanka inay wax ka qabtaan runtii dhallinyaradu waa lafdhabarka waddanka iyo horumarkiisa waxaa lagu qiyaasaa bulshadeenna 70% ilaa 75% inay ka yihiin dadka dhallinyarada marka haddii dhallinyaradu kacdo ama xoog intaa la isqabsado oo horumar sameeyo waddankoo dhan waa kacaya runtii horumar buu samaynayaa waxaa la rabaa marka mashaariicda horumarinta inaad taageertaan ilaashataan cidda soo dhirindhirisay oo idiin keentayna aad u mahad celisaan waa sharaf weyn aad iyo aad bayna u fiican tahay wax badan bayna soo gelaya intii ay sotay xafladda waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeeday mid ka mid a dhallinyarada ku bohday madashani kaafiya isagoona khudbadiisa uga hadlay waxyaabo badan oo bulshada Soomaaliyeed khuseeya ugu dambeyntiina madasha waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed wuxuuna dhaliinta u ballan qaaday inuu aqoon ahaan iyo waliba dhinac walba uu garab taagan yahay Cabdullaahi Sheekh Axmed baa la yiraahdaa wasiirka xanaanada xoolaha aan ahay hadda sidaas baad u qoranaysaan cidda qoraalada idiin haysa waa igu talagelaysaan meel kastoo aan joogo haddaan bannaanka hadhow soo anoo aan wasiir ahayn hadduu aan wasiir ahay anoo aan wasiir ahayn anoo oday magaalo ah iyo anoo madaxweyne ah intaba waa igu tashan kartaan intaba waa igu tashan kartaan diyaar baanu idinahay waa aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum daawud maxamed xasan warbaahinta SBC magaalada Qardho golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa ay ansixiyeen xisaab xidhkii dawladda ee sanadaha 2014 2015 wariyaheena Maxamed Farax Omaade ayaa warkaasi magaalada Hargeysa ka soo diray golaha wakiilada ee Somaliland ayaa fadhi ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Hargeysa waxa ay ku ansixiyeen xisaab xidhkii dawladda ee 2014-2015 kaasi oo in muddo golaha hor yaalay waxaana xildhibaanadu intaanay ansixinin ay hore uga sameeyeen dood xisaab xidhkani la xidhiidha fadhigana maanta oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxaa ka soo xaadiray 43 mudane codayntii oo ahayd mid gacantaaga ayaa markii ay soo dhamaatay waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax waxa fadhiyay 43 xildhibaan 38 xildhibaan waa ogolaatay miisaaniyadii waxaan la xisaab xidhkii 14 iyo 15 laba xildhibaan waa ka aamusay waa diideen laba xildhibaan waa ka aamusay gudoomiyuhu muu codayn xisaab xidhkii 14 iyo 15 sidaas ay ansax ku yihiin waxaanu iyadana keenaynaa xisaab xidhkii 16 hal keeno gudidina ha keento isagana berritayno insha Allah aanu keenaynaa Maxamed Faarax Omaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ka warbixiyay heshiiskii hordhaca ahaa ee u dhaxeeyay Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe wariyaheena Saciid Cabdi Daahir ayaa warkaasi faahfaahinaya wasiir iyo xildhibaano ayaa ku soo dhaweeyay garoonka magaalada Muqdisho wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo muddo 10 casho ah ku maqnaa dalka Djibouti halkaasi oo uga socday shir lagu dhexdhexaadinayay madaxda Galmudug iyo sidoo kale Ahlu Sunna gobolada dhexe wafdiga ayaa kamid ahaa Sheekh Axmed Shaakir madaxweynaha Ahlu Sunna gobolada dhexe xildhibaano iyo wasiir iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi Carabey
shir jaraa'id oo si wada jira ugu qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo madaxweynaha ahlu sunna gobolada dhexe sheekh axmed shaakir ayaa yadiile ay ka muujiyeen qodobadii ka soo baxay heshiiskii hordhac ahaa ee urur goboleedka igaad garwadaanka ka ahayd ee ka dhacay dalka jabuuti. waxa ay sheegeen labada mas-uul inta harsan ee heshiiskan inay ku dhammaystiri doonaan gudaha dalka. mudanayaal marweyn anagu shirka ayaan niman 10 cisho ayaan maqnayn shir waana ku soo guulaysanay alxamdulilah rabbil caalamiin. heshiiska ugu weynaa oo la sugahayay waa soo gaarnay. waxaan rajaynaynaa inaan fulintiisa iyo isdabadhigidiisa dalka gudihiisa ku dhammaystiri doono. mudanayaal iyo marwooyin mas-uuliyiinta sharafta leh wasiirada iyo xildhibaanada leh oo na soo dhaweeyay waa u mahad celinaynaa. runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxnay soo dhaweyntiina. jabuuti ayaan ka nimid iyadana waxaan ku soo gaarnay heshiisaan ku soo gaarnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. dhammaystirkiisiina waddankan kula soo noqonnay waana dhammaystireynaa insha allahul kariim. waxaana rajaynaynaa ummadda gobolada dhexe inay isku meel u jeesataan rajaynaynaa haddii allah idin cadowgeedana ay u midoobi doonto. imaanshaha wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ee magaalada muqdisho ayaa imaanaysa xilli magaalada muqdisho uu ka socda shirka golaha amniga qaranka oo qayb ay ka yihiin maamulka galmudug. siciid cabdidaahir joogsade warbaahinta SBC magaalada muqdisho. xildhibaanada baarlamanka dowladda Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa loo qeybiyey xeroosaadka baarlamanka iyadoona xubno cusub lagu daray guddiga dastuurka ee baarlamanka Soomaaliya. wariyaheena Faadumo Cabdulqaadir oo xarunta baarlamanka ku sugnayd ayaa warkaasi Muqdisho ka soo dirtay. xildhibaanada baarlamanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo maanta kulankoodii caadiga ah ku yeeshay xarunta golaha shacabka ayaa ansixiyay xubin ka mid noqon doonta guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka. waxaa shir gudoominaya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya iyadoo ay ku wehelinayeen labadiisu ku xigeen. kooramka xildhibaanada soo xaadirtay ayaa ahaa 161 xildhibaan. golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya markii uu furmay kulankooda waxay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xubinnimada Muumino Sheekh Cumar oo noqonaysa xubin ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka. natiijada ayaa ku dhawaaqay gudoomiye Jawaari oo shirkan maanta shir gudoominayay. wax ka aamusay ma jiraan, waxaa diiday hal xildhibaan, waxaa ogolaaday 158 xildhibaan. saa daraadeed waa ansax. muumino Sheekh Cumar ayaa lagu wadaa inay marto xildhibaanada aqalka sare si iyagana ay u ansixiyaan markaas ay noqon doonto xubin buuxda oo ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka. waxay ka mid ahayd xildhibaanadii hore dhowaana waxaa sidaan oo kale soo meelmariyay xubinnimadeeda guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka golaha wasiirada xukuumadda federaalk Soomaaliya. intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka waxayna ku kala aragti duwanaayeen arrintani. waxaan hubaa inay wax badan kusoo kordhinayso baarlamaanka. wax badan baan qiinay qof integrity leh hufan Soomaaliya weeye. guddiyada qaranka ee la samaynayo xildhibaanadii hore in mudnaan laga siiyo waa lagama maarmaan. xildhibaanadii hore baarlamaanka waa ka baxeen, dabcan inaguna waa ku jirnaa, hadda waa ka bixi doonaa. madaxweynayaasha waxaa la yidhi automatic bay baarlamaanka u gelayaan. ra-iisul wasaareyaashii hore dubay iyo meelaa la dejiyaa. xildhibaan baa tahay markaad xilka ka degto wax dambe oo lagugu safalayo oo aad qaban kartaa ma jirto. waxaan isleenahay runtii waqti aad iyo aad u fara badan inaan ku bixinay xeeroosaadka. runtii wax aad u qurux badan waad ku farxi doontaana ilaahay hadduu yidhaahdo waad ka dhex arki doontaan. waxaan u maleynayaa muddadii fasaxa baarlamaanka hadda. dhanka kale waxaa meesha ka hadashay Muumino Sheekh Cumar oo noqonaysa xubin ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka. waxay soo dhaweysay ka mid noqoshada xubin ka mid ah dastuurka. waxay u mahad celisay xildhibaanadii uu codeeyay. xildhibaanadii hore iyo kuwa cusub waxaan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta la adii qiimeyseen. waa idinkaga mahad celinayaa. waxaanse idiin rajaynayaa dadaalka aad ku jirtaan iyo shaqaynta aad ku jirtaan ummadda Soomaaliyeed aad u haysaan inaad ku guulaysataan. waana mahadsantihiin sida sharafta la aad iigu codeyseen.
waa mahadsantihiin. gabagabadii shirka waxaa soo xiray maxamed sheekh cusmaan jawaari ahna gudoomiyaha baarlamaankan tobanaad ee Soomaaliya. waxaan ka codsanayaa dhammaan magaciisa guddiga xoroosaadka inay ku soo dadaalaan in sida ugu dhaqsaha badan ay noo keenaan. waxaan kaloo jeclahay guddiga garsoorka sida ugu dhaqsaha badan inay u fariistaan ayagana noo keenaan warbixintii ugu dambeysay oo ay wasaaradda garsoorka la gaareen ku saabsanaa guddiga adeega garsoorka arrimihiisii in golaha ay warbixintii u keenaan sida ugu dhaqsaha badan. Faaduma Cabduqaadir Xasan, warbaahinta SBC, magaalada Muqdisho. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya Marwaqada Jidiriya ayaa garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxa ay ku soo dhaweysay ciyaartoyda Puntland iyo Jubbaland oo halkaasi ka degay. wariyaheena Shamaarka Xuseen ayaa warkaasi Muqdisho ka soo diray. wasiirka wasaaradda ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Marwaqadiija Maxamed Diiriye iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ciyaaraha dalka ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxa ay ku soo dhaweeyeen ciyaartoyda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho maanta soo gaaray waxayna ciyaartoydan ka qayb gali doonaan tartanka kubadda cagta maamulada dalka oo 7 bishan ka furmi doona caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. mas'uuliyiintii kala hogaaminaya ciyaartoyda labada koox Puntland iyo Jubbaland oo la hadlay warbaahinta waxa ay aad ugu mahadceliyeen soo dhaweynta loo sameeyay. aad ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta balaaran iyo hogaaminta wanaagsan ee wasiirad Khadiijo. runtii waxaan leeyahay waa hogaamiye fiican waana bilowgii tartankii isdhexgalka Soomaaliya ama ciyaaraha Soomaaliya. waxaa muuqda iftiin, waxaa muuqda Soomaaliya hore socoto, waxaa muuqda dad badan oo kala maqnaa inay isku yimaadeen. waana faalaynaa waxaanu jecelnahay inaan mar labaad koobkii misna garowga kula noqono iyo Puntland. mahadsan tahay 100% haddaan Jubbalandna waxaan soo diyaargarownay in la ciyaarno. marka waxaan rajaynaynaa inay ku dhamaato guul iyo farxad. waxaan u imaanay siyaasad uma imaanin, waxaan u imaanay in ciyaarno ciyaaro fiican oo nadiif ah oo hufan in la ciyaaro ayaan u imaanay. wasiirka wasaaradda ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Marwaqadiija Maxamed Diiriye oo dhankeeda la hadashay warbaahinta waxay aad u bogaadisay ciyaartoydan maanta Muqdisho soo gaartay tartanka kubadda cagta ee maamulada dalka 7 bishan lagu madalsan yahay in Muqdisho uu ka furmo. juudiga ay geliyeen in ay Muqdisho yimaadaan waxayna si diiran ugu mahadcelisay maamulada ay ka yimaadeen. waxaa haddeer soo degay dowlad goboleedka Jubbaland waadna ogtihiin maalmahan waxaa wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay diyaargarow weyn ugu jirtay qabashada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waxaan ku faraxsanahay maanta waxaa si nabad noo soo gaaray ayagana oo qayb ka mid ah intii hore u joogtay ciyaartoyda dowlad goboleedka Jubbaland ee kubadda cagta. waxaan leenahay soo dhawaada. waxaa haddeer soo gabagaboobay soo dejinta wafuudda iyo ciyaartoyda dowlad goboleedyada ka qayb galayay tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ka furmaaya bisha 7 Muqdisho. Shamaarka Xuseen, warbaahinta SBC, magaalada Muqdisho. hooyo Soomaaliyeed oo dhashay 6 caruur ah oo oogada sare ee jirkooda uu ka maqan yahay diirka isla markaana ku nool deegaanka Kalabayr ayaa waxa ay baaq u dirtay ummadda Soomaaliyeed waxaana ay sheegtay xanaaneynta ubadkeeda iyo la tacaalka daryeelkooda caafimaad inay ku dhiban tahay. wariyaheena Cabdirashiid Baalgoray ayaa warkaasi noo faahfaahinaya. qoyskani danyarta ah waa qoys degan koonfurta degmada Kalabayr. qoyskani ayaa haysta caruur ku dhashay bilaa dub oo aan haba yaraatay lahayn diirka sare ee bini'aadamka kuwaasi oo dhibaato ba'an ku hayaan dabaysha, cadceedda, qabowga, kuleylka iyo cayayaanka yaryar ee uu ka mid yahay diqsigu. hooyo Farxiye Axmed Yuusuf oo ah hooyada dhashay ciyaalkani ayaa noo sheegtay in ay dhashay 13 ciyaal ah isla markaana ay 6 ka mid ah ku dhasheen bilaa dub waxaana nooga warramtay dhibaatada ku gadaaman caruurtani bilaa diirka ah. sidoo kale hooyo Farxiye ayaa xustay in ay kaamo uga baahan tahay ummadda muslimiinta. waxaan ahay Farxiye Axmed Yuusuf inantaas waa Cawa Cabdilaahi Cabdi taasna waa Hadiye Cabdilaahi Cabdi
caruurtaa waad aragtaa nimcada iyo dhibtay haysata 13 caruura ayay ahaayeen 7 way caafimaad qabeen 6na way xanuunsanayeen 6 xanuunsanayay 4 baa dhintay labadaas iminka adduunka jooga daqsi ma qaadi karaan qabow ma qaadi karaan kuleel ma qaadi karaan walaalaha islaamka waxaan ku codsanayaa horta in lagu jiro ilaahay baa garanay hayso alla baryaan ducaan ku codsanayaa shahaadada iyo islaamnimada aanu ka mid ka nahay waxaan ku codsanayaa in ubadka ilaahay dartii la igu soo caawiyo nin walba waxaan ka codsanayaa in ilaahay dartii igu soo caawiyo nin walba wuxuu awoodi karo dadka way aragtaa si ay eegyihiin qarka saaya way iswada cunayaan waxay isku wada cunayaan ninka dabaysha ay intaas xamil laayihiin dad miyi joogaan oo nahay dadka miyi joogana waa ogtiin oo itaalkiisa ilaahay baa itaal caafimaad qab uu dadku ku nool yahay ummadda islaamiinta dal iyo dibad meeshay joogaanba waxaad igu soo caawinaysaa inaan dadkaas sidii aan dhakhtar u geyn lahaa ee aan meel waa Cabdirashiid Salebaan Muse SBC TV gobolka Gabiley guud ahaan daawadayaal waa naga intaas war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka SBC waxa idinla socodsiinayay anigoo Maxamuud Soofaysana ah aniga ayaa bahadii kala qayb gashay waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo